السلام عليكم. قضية مسعود أوزيل iyo xukuumadda Shiinaha kadib markuu ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin muslimiinta Iigoorka Turkistaanta bari ee Shiinuhu xooga ku haysto inta badanna warbaahinta caalamka aad uga hadlaan laguna cambaaray xukuumadda Shiinaha waxa ay ka wado Turkistaanta bari labadii maalin ee u dambeysay ilaa maantadan aan ku jirno warbaahinta kala duwan ee caalamka waxay aad uga hadlayaan hadal uu Twitterka ku faafiyay ciyaaryahanka Mas'uud Ozil in aad tahay qof muslim ah oo ka murugaysan kana hadlo waxyaabaha muslimiinta daafaha dunida ay la kulmayaan qasab ma ahan in aad tahay sheekh la yaqaano ama qof diin lagu yaqaano inuu ka hadlo kaliya waa in aad tahay qof damiir leh waana sida uu sameeyay Mas'uud Ozil. Mas'uud Ozil waa ciyaaryahan asal ahaan ka soo jeeda Turkiga laakiin ku dhashay kubad ahaanna ku koray dalka Jarmalka una ciyaari jiray xulka qaranka Jarmalka kuna guuleystay koobka adduunka Brazil 2014 waana mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan dhinaca khadka dhexe iyo sameynta goolasha. haddaba Mas'uud sida qof walba bini aadam oo xaq ugu leeyahay inuu ra'yigiisa cabiro ayuu xisaabaadka kala duwan uu ku leeyahay baraha bulshada u adeegsada inuu ku cabiro ra'yigiisa inkastoo xilliyada qaarna muran uu dhaliyo ra'yigaas uu bixiyay Mas'uud Ozil. haddaba maxaa dhacay waa maxay hadalka uu soo qoray Mas'uud iyo ficilka ay ka bixisay xukuumadda Shiinaha waliba saameeyay guud ahaaneed kooxda Arsenal. Mas'uud Ozil hadalkan hortanada ka muuqda lagu dul qoray backgroundka ama daboolka dambe ee caalanka Turkistaanta bari ama East Turkistan ayaa wuxuu ku qoray hadal micnihiisu yahay oo cinwaan uga dhigay marka koobaad Turkistaanta bari dhiigga ummadda muslimka ee daadanayo. wuxuu yiri Mas'uud caalamka muslimka dunida muslimka waxay ku jiraan aamusnaan xilli warbaahinta galbeedka ay ka hadlayaan waxa uu Shiinuhu ka wado Turkistaanta bari waa hadal la yaab leh taasoo in muslimiintu ay aamusan yihiin warbaahinta muslimiinta inta badan ay ka hadlin taasoo in ay ka mudnaayeen lagana rabay ka badan inay ka hadlaan inta ay ka hadlayaan warbaahinta galbeedka laakiin cagsi ayaa dhacay warbaahinta galbeedka ayaa ka hadlayo kuwii muslimiintana way aamusan yihiin waana sida uu soo qoray Mas'uud Ozil. wuxuu raaciyay hadalkiisa Turkistaanta bari masaaxifta kutubta Qur'aanka waa la gubaa masaajidadana waa la xiraa waa hadalka Ozil uu qoray sidoo kale madaaristuna waa mamnuuc culimada ahludiinka ama qof kasta isku daya inuu diinta ama Qur'aanka baro dadka kale muslimiinta Iigoorka hal ayaa loo qafaashaa raggana waxaa loo kaxeeyaa sida raxan ariya meelaha Shiinuhu ay u sameeyeen in ay ku ciqaabaan muslimiinta xabsi wadareedyada uu Shiinuhu dhigay una eg xabsiyadii uu Hitler ku xiri jiray Yahuudda. sida uu soo qoray Ozil oo runtii ku taagan xaqiiqooyin ay warbaahinta baahinayaan oo ah in uu yiri xukuumadda Shiinaha qoys kasta oo muslim ah waxay dul dhigtaa oo ay ilaalo uga dhigtaa nin Shuuci ah kadib markii ragga la xiray laga buuxiyay meelaha lagu xiro dumarkina lagu qasbay in ay guursadaan Shiinays. hadalkan dad badan oo muslimiin ayaa u riyaaqay aad ugu farxay soo dhaweeyay ciyaartay hore sida Maxamed Abu Tariika oo 3 jeer ku guuleystay koobka Afrika oo ciyaari jiray Masar. بالنسبة لي أوزيل قدم نموذج للرياضي صاحب الضمير الحي ويملك الشجاعة الذي ربما لا نملكها أحد يحارب من قلة إنما الأجر فوق الأجر عند ربه فأتمنى له التوفيق. أشكره على هذا الموقف أشكره أنه أصبح قدوة للرياضيين إنه يعبر عن رأيك قول ما تخافش اللي انت تحس بيه اللي بتشعر بيه. احيانا مننا بيخاف يقول لك اسرتي يقول لك فلوسي انما هو تغاضى عن كل ده. xukuumadda Shiinaha ayaa cambaaraysay hadalka Mas'uud Ozil. haddaba shalayta oo axad ahayd waxa ciyaarayay Arsenal oo ah kooxda uu ciyaara Mas'uud Ozil iyo kooxda kale ee Manchester City. haddaba dhinaca Shiinaha si guud ahaaneed Aasiyada bari aad ayaa looga taageeraa Arsenal waxaana baahin jiray TV Shiinaysa CCTV. haddaba sida hortanada ka muuqato oo ay BBC-du faafinayso arrin uu sabab u yahay Mas'uud Ozil TV-ga Shiinaha wuxuu diiday in uu faafiyo in uu baahiyo ciyaartii oo awalba sida tooska u baahin jiray ee Manchester City iyo Arsenal ee dhacday shalay Axadii
runtii Mas'uud Ozil wuu og yahay in arrinkan arrimo noocan oo kale ay ka dhalan doonaan oo xitaa taageero Shiineys uu ku waayayo laakiin wuxuu ku socdaa mabda ah islaamnimada ayaa wax walba ka weyn in qofku bad igu taageeray ugu noco mowqif aniga aan qaatay runtii markii laga soo tago dhinaca islaamnimada dadka Turkiga ee ku nool Turkiga aan naqaan maanta iyo xitaa Turkida ku nool Azerbaijan iyo wadamadan Aasiyada dhexe Uzbekistan Kazakhstan asal ahaan waxay ka soo jeedaan dhammaan Turkida dhan waxay ka soo jeedaan Igoorka Turkida bari Turkistaanta bari halkaas ay ka soo wada jeedaan oo dadkan xiriir dhiig ayaa xitaa ugu yaraan kala dhaxeeyo haddii aad qof ka soo qabato Istanbul maanta Turkiya oo aad ka dejiso Kashgar Turkistaanta bari ugu yaraan 15% ayuu fahmi afka ay ku hadlaan Igoorka taasoo xitaa aad dareemaysa in dadka Turkida caadiga shacabka caadiga Turkiga ay si weyn u difaacaan aad iyo aad uga hadlaan qadiyadan Turkistaanta bari oo aad meel walba ku arkayso warbaahinta calanka Turkiga iyo calanka Igoorka sababtoo ah muslimnimo iyo dhiig ayaa naga dhaxeeyo qofka Turkiga wuxuu aaminsan yahay in uu qadiyadan uga dhow yahay muslimiinta kale dad ay dhiig wadaagaan arrinku wuxuu aad u shabahaa kala sida Pakistan iyo qadiyada Kashmir in ay Pakistan si markii loo fiiriyo ay tahay in ay muslimiinta kale uga dhowdahay qadiyada Kashmir oo kale sida warbaahinta kala duwan ee caalamka ka hadlayaan hadalka uu soo qoray Mas'uud Ozil oo ah in hadalkii aan soo sheegnay oo ah muslimiintu way aamusan yihiin laakiin masaaxifta masaajida dhammaan waa lagu xadgudbayaa waana la xirayaa sidoo kale sida uu qorayo wargeyska The Guardian Mas'uud Ozil qadiyadiisa ay ka hadlaysaa Shiineyska taageersan naadiga Arsenal ayaa gubayo funaanadaha naadiga iyo waliba gaar ahaan midda Mas'uud Ozil laakiin runtii sidaan sheegnay Mas'uud Ozil arrinkan wax qiimo ugu fadhiyo waxa ka muhiimsan malaayiin muslimiin oo sida xooli ka daran loola dhaqmaayo waxa uu Shiinuhu ka wada Turkistaanta bari runtii ma ahan wax xitaa laga sheekayn karo waxa uu Shiinaha ka wada darto yani wax laga sheekayn karo ma ahan waa musiibo aad iyo aad u dhib badan aad iyo aad u qaraar sidoo kale sida hortanada ka muuqato TV-ga Shiinaha ayaa kansalay laalay baahintii ciyaartii shalay Arsenal iyo Manchester City iyo xitaa ciyaaraha soo socda oo ay Arsenal ciyaari doonto Shiinaha laguma baahin doono laakiin runtii aniga sida aan qiyaasay shakhsi ahaan Allahu a'lam wixii dhici doono waxaan qiyaasayaa in naadiga Arsenal oo laali doono ama ka noqon doono heshiiska kala dhaxay Mas'uud Ozil in ay kala saxiixan doonaan in ay kala tagaan waa macquul ma hubo laakiin waa macquul isla markiiba naadiga Arsenal wuxuu iska fogeeyay hadalka Mas'uud Ozil ayagoo leh ra'yigiisu cabiray oo arrin siyaasad ee waliba hadallo kale ay sii sheegeen mustaqbalka sida ay wax noqon doonaan Arsenal iyo Ozil Allahu a'lam laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan sidoo kale kasbashada uu kasbaday Mas'uud quluubta malaayiin muslimiina daafaha dunida inaad arkayso saacadihii u dambeeyay in aad iyo aad looga hadlaayo aadna loo bogaadinayo qadiyada iyo mowqifka uu qaatay Mas'uud Ozil in uu difaaco walaalihiis muslimiinta waarin maanta cajiiba in ay jiraan culimo fara badan oo la yaqaano laakiin ayagoo maslaxad gooni si uu afiirsanayo aan arrimaana kale ka hadlaynin ama xitaa baqaaya markaad safartaan oo kale ama wax mashaakil idin soo wajahaan oo hadda laga yaabo sheekha ugu weyn hadaad weydiiso ama sheekh hadaad weydiiso kale Mas'uud Ozil sida aragtaa waan in kubad ciyaaro oo laga yaabo inuu ku dhaho laakiin qalbigiisa iimaan ayaa ku jiro u damqanayo walaalahaas muslimiinta taasoo ah in qof muslima aadan dhayalsanin si kastoo ahaado maadaama uu iimaan leeyahay in aadan dhayalsanin si guud ahaaneed Mas'uud Ozil weligiis wuxuu ahaa qof muxtaram ah aad iyo aad u akhlaaq wanaagsan aad iyo aad loo yaqaan inuu yahay qof akhlaaqda iyo islaamnimadu ay mar walba ka muuqan jirtay Mas'uud Ozil xitaa haddii Arsenal ay fasaxaan Ozil waxaan u rajaynaynaa naadi ka fiican inuu u ciyaari doono dibna u soo ceshin doono xirfadiis aad u sareysay ee barihi u dambeeyay xogo hoos u dhacday Mas'uud Ozil waxaan ku rajaynaynaa guul mar walba